ka amar qaata General Cabdi Mahdi oo kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa weeraray dekedda magaalada Kismaayo. Israasayn kooban oo dhaxmartay ciidamada ammaanka iyo ciidanka jananka kadib waxa soo kala dhaxgalay ciidamada AMISOM ee ku sugan dekedda. gaari qabaal ah oo uu leeyahay General Cabdi Mahdi kaas oo ka soo degay dekedda ayuu muranku ka dhashay. madaxweynaha Jubbaland ayaana sheegay inuusan aqbalayn in gaadiidka gaashaaman uu soo dego shakhsiyaad kolorada sidaan oo kaleeto waxaa loo diiday Cabdinaasir Seeraar Maax oo xilligaasi mucaaradsanaa Axmed Madoobe inuu dekedda kala soo baxo gaari uu kala soo degay walow markii dambeeta ciidamada Kenya ay arrintaas soo farageliyeen loona soo bixiyay gaarigaasi Seeraar. General Cabdi Mahdi oo asagu maalin ka hor warbaahinta la hadlaya madaxtooyada Jubbaland ku eedeeyay inay gurigiisa soo weerartay laakiin lama oga sida xiriirka u leeyihiin gaarigaani looga xayiray dekedda magaalada Kismaayo iyo weerarka lagu qaaday gurigiisa sidoo asagu hore u sheegay. si kastaba ha ahaatee Axmed Madoobe ayaa cadaadis xoogan waxa uu kala kulmayaa dawladda Soomaaliya wuxuuna diidayaa in saraakiisha ka midka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan deegaanada Jubbaland ay helaan ciidamo iyo awood ku filan oo dhanka saanada ciidana taas oo ay suurtagal tahay in Axmed Madoobe kula dagaalamaan haddii amar laga siiyo filla Soomaaliya oo